mashruuc tamarta cadceedda ah oo tijaabo ah oo la doonayo in looga maarmo shidaalka tirada badan ee korontada ku baxa ayaa waxaa laga hirgeliyey magaalada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. mashruucan solar system-ka ah ee laga hirgeliyay degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa loogu talagalay in lagaga maarmo mishiinada dabka dhaliya ee dhaqaalaha badan uu ku baxo. waa mashruuc tijaabo ah lana doonayo in guud ahaan dalka lagu baahiyo. degmada Warshiiq waa magaaladii ugu horeysay ee laga hirgeliyo mashruucan maadaama dadkeedu ay yihiin kalluumaysato una baahan qaboojiyaal kalluunka lagu kaydiyo. mashruucan waa mashruuc aad u ballaaran degmadana Warshiiq lagu bilaabay tijaabo ahaan si Soomaaliya dhan guud ahaan loo wada geliyo mashruucan korontada cadceedda ku shaqeysa. awalan horta waxaa lagu doortay hadda adduunyada waxaa lagu jiraa xilli laga guurayo matooradii oo sababtoo ah shidaalka aad u fara badan loo adkeysan waayey ee loo guurayo xeeday tamarta qoraxda ah. sidaas darteed lagu doortay in Warshiiq la keeno solar system-ka. korontada laga dhaliyo mashruucan solarka ayaa dadka reer Warshiiq waxay biilasha ku bixin doonaan si ka duwan sida waqtigan biilasha korontada lagu bixiyo Soomaaliya. dadku waxay solar tirada horta guud ahaan waa 126 xabo oo solar. isticmaalkuna waxay noqonaysaa korontadii ugu horeysay Soomaaliya laga hirgeliya ee prepaid ah. qofka lacagta ay ku shubato isticmaalkeeda ay ku xiran tahay lacagteeda hadii ka lacagta maatana way isdiminaysaa kadibna lacagta ku shuban doontaa saasi kugu shaqeynay ma jirayso xeeday shaqaalihi wareegay oo guriyaha tagay saacad korontada waa jarnay iyo waxaas iyo lacagta la bixi waxaas ma jirayaan adiga korontada lacagta bixi weyso guriga muddo ku ahaanay qaabkaas dadku isticmaalay marka waa prepaid oo fadlan lacag ku shuba. dhaqaalaha ka soo baxa adeega korontada solarka laga dhaliyay ayaa waxaa dib loogu celin doonaa degmada waxaana loo isticmaali doonaa adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo nadaafadda deegaanka. Xuseen Xasan Dhaqane, qubnaha VOA, degmada Warshiiq.